Somali Cable stuudiyaha uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Riili. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday laba dhalinyaro ah oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen amba ay ku lug lahaayeen dhimashada dhowr iyo 70 ruux oo siyaabo kala duwan loo dilay qaarkoodna qaraxyo ay ku sababeen halka kuwa kalena si toos oo bareer ah toogasho ay dilkoodii qayb uga qeexateen. labadaas dhalinyarada ayaa barnaamijka ku daawan doontaan iyo qaabka maxkamaddu dambiyadeeda ay u xukuntay. barnaamijka wardoon sidoo kale waxaan idinku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya ee fariisimaha ku leh gobolka Shabeellada Dhexe ayaa aagagii baneeyay iyagoo carooday isla markaana sheegay inay ka cabanayaan mushaar la'aan. ciidamada iyo deegaanada ay ka soo baxeen ayaad barnaamijka wardoon ku daawan doontaan. barnaamijka wardoon waxaad ku daawan doontaan kulan looga hadlayay waxqabadka wasaaradda maaliyadda iyo waliba waxyaabihii u qabsoomay ayaa iminka ka soconaya mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ay qayb ka yihiin aqoon-yahano, siyaasiyiin, xubno dawladda, wasiiro iyo waliba dad ku xeeldheer cilmiga dhaqaalaha. waxaa sidoo kale ka hadlay saraakiil ciidanka u qaabilsan dhanka xisaabaadka iyo xubno kale. wasiirka maaliyadda ayaana kulankaasi xubnaha goobjooga ka mid ah. barnaamijka wardoon ayaan idinku soo gudbin doonaa. magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay hanaanka iskaashiga bulshada iyo waliba laamaha ammaanka iyo qaabka ay u wada shaqayn lahaayeen. kulankaasi oo arrimo dhowr oo xasaasi ah amniga qaabilsan lagu lafaguray ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. maamulka cusub ee degmada Xamarweyne ayaa xilkii kala wareegay maamulkii hore degmadaasi kadib in muddo markii gudoomiyaha xilkaasi uu ka maqnaa isla markaana ku same xilka gudoomiyaha degmada Xamarweyne uu sii hayay. ugu dambeynna Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo horay degmadaasi gudoomiye uga soo noqday ayaa maanta mar kale xilka dib ula wareegay. xildhibaan Khalid Macow oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddiga saxaafadda gudoomiye ka ah ee golaha shacabka ayaa ugu baaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir canshuurta ka soo baxda suuqa Xamarweyne in suuqaasi dib loogu celiyo maadaama suuqu u baahan yahay nadaafad, dib u dhis, dayactir iyo waliba la socodka dhamaanba kaabayaasha uu u baahan yahay bilicda suuqa degmada Xamarweyne. mid ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed gaar ahaan Sheekh Shantaay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dagaalada ka soconaya qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya wuxuuna baaq iyo digniin u diray maamulka Puntland kaasi oo ku aadan falalka guracan ee kufsiga ee ka dhacaya deegaanada Puntland hoostaga. barnaamijka wardoon ayaan idinku soo gudbin doonaa qodobada iyo kuwa kale inta barnaamijka aynu ku guda jirno wixii ku soo korona barnaamijka wardoon ayaad ku daawan doontaan. waxaa barnaamijka ii farsameynaya Cabdiraxiin Xuseen Ceelaawe waxaana soo saarista gacan iga siiyay Cabdifataah Macal Nuur Qays. aan ku bilaabay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday laba dhalinyaro ah kuwaasi oo lagu eedeeyay dad 70 kor u dhaafaya dilalkooda inay lug ku lahaayeen. haddaba gudoomiyaha maxkamadda Gaashaanle Shuute ayaa ka warbixinaya. oran maayo dhammaan waxaan soo dhaweynayaa madaxda sharafta leh oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. waa tahay daawadayaal waa ku soo noqon doonaa gudoomiyaha maxkamadda sidoo kale waxa uu sheegay in ay siyaabo kala duwan ugu kuurgaleen inta raggaani aan xukunka lagu samaynin waxayna sidoo kale qireen inay ahaayeen rag dambiyadaasi markii ay galayeen gacanta lagu soo dhigay. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal. 1 canshuur Cismaan Abuukar ina Faadumo Aadan Cismaan 23 jir ah ku dhashay Shabeellada Dhexe. 2 Maxamed Cali Boorow Aadan ina Xaawo Cawil Mursal 25 jir ah ku dhashay Baay kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka, dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah. eedeysanaha koowaad canshuur Cismaan Abuukar waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab kana soo shaqeeyay xilliyo kala duwan qaybo ay ka mid yihiin jabhadda weerarada baabuurta lagu fuliyo
iyo qaraxyada ismiidaaminta oo uu u ahaa sahmiye isagoo si gaar ah ugu eedaysan inuu fuliyey falalka soo socda. taariikhdu markay ahayd 15kii bishii 8aad 2017 waxay weerar ku qaadeen isaga iyo 2 ruux oo kale gaari hartobland garuusal ah oo ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer xasan cabdi cawad oo ka mid ah maamulka shirkadda dahabshiil, kuwaas oo ay ku fureen rasaas tacshiirad ah uuna ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi kuna dhaawacmeen 5 ruux oo ka mid ah qoyska maamulaha. taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 9aad 2017 isgooska Via Roma ee degmada Xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen 2 marxuum ee kala ah Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo Axmed Jaamac Xirsi oo ahaa wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka. gaarigaas oo ay rasaas tacshiirad ah ku fureen ayna ku geeriyoodeen 2 marxuum ee sare ku xusan. taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 11aad 2018 wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu qaraxyadii ka dhacay hotel Saxafi isagoo sahmiye iyo haga u ahaa 3dii baabuur ee qaraxyada ismiidaaminta ahaa iyo weerarkii hubaysnaa ee ay ku nafwaayeen dad gaaraya 32 ruux kuna dhaawacmeen 69 ruux oo kale. sidoo kale eedaysanuhu taariikhdu markay ahayd 22kii bishii 12aad 2018 wuxuu ahaa abaabulihii qaraxyadii ka dhacay tiyaatarka qaranka halkaas oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux ayna ku dhaawacmeen 55 ruux oo kale, iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii uu uga degay gaariga labaad ee saarufka ahaa taalada daljirka daahsoon. gaarigaas oo isagana qarxay ayna ku geeriyoodeen marxuumiin ay ka mid ahaayeen Faysal Salaad Samow iyo Axmed Maxamed Yuusuf oo labaduba macallimiin ka ahaa iskuulka Yaasiin Cismaan. eedaysanaha labaad Maxamed Cali Boorow Aadan waxaa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isla markaana uu qayb ka ahaa sahmintii qaraxii lagu weeraray degmada Howlwadaag 2 bishii 9aad 2018 oo sababay dhimashada 8 ruux iyo dhaawaca 27 ruux oo kale. sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu isaga iyo eedaysanaha koowaad qaraxii ka dhacay tiyaatarka qaranka 22kii bishii 12aad 2018 oo ay wadeen gaarigii labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka daahsoon. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Canshuur Cismaan Abuukar uu ka hor cadeeyay garsoorka in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab kana soo shaqeeyay qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay weerarada lagu fuliyo baabuurta asagoo qayb ka ahaa weeraro ay ka mid ahaayeen weerarkii 15kii bishii 8aad 2017 degmada Hodan lagula beegsaday gaari hartobland garuusal ah oo ay saarnaayeen hal qoys oo uu ku geeriyooday hal ruux kuna dhaawacmeen 5 ka mid ah qoyskii gaariga saaraa. sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu qayb ka ahaa weerar lagu qaaday gaari saaruf ah oo marayay isgooska Via Roma degmada Xamarweyne 27kii bishii 9aad 2017 oo ay ku geeriyoodeen 2 ruux ee saaraa gaariga. sidoo kale eedaysanuhu wuxuu garsoorka u cadeeyay in uu ahaa sahmiyihii weerar iyo qaraxyo lala beegsaday 9kii bishii 11aad 2018 hotel Saxafi weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux kuna dhaawacmeen 69 ruux oo kale, iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu ka degay gaarigii labaad ee ku qarxay 22kii bishii 12aad 2018 agagaarka daljirka daahsoon. qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 2 macallin oo ka tirsanaa iskuulka Yaasiin Cismaan. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Maxamed Cali Boorow Aadan uu ka hor bixiyay garsoorka hortiisa kuna cadeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isaguna sahmiye ka ahaa qaraxii lagu weeraray degmada Howlwadaag 2 bishii 9aad 2018 sidoo kale eedaysanuhu wuxuu cadeeyay inuu qayb ka ahaa weerarkii 22kii bishii 12aad 2018 lagu qaaday tiyaatarka qaranka. ciidamada amnigu ay qabteen kadib markii uu ka degay gaariga labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka daahsoon.
markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keena mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay dad shacab ah u sheegeen in labada eedaysana ay ka degeen gaari ay dhigeen agagaarka daljirka daahsoon sidaasna ay ku qabteen intii ay waraysanayeenna uu qarxay gaarigii ay ka degeen qaraxaas oo sababay dhimashada 3 ruux oo 2 ka mid ah ay ahaayeen macallimiin iskuul markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin cadaymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii iyo weeraradii lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha sawirrada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyay markay dhegaysatay maxkamaddu doodii qareennada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro la maran habaabiyey sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dembiile shabaab canshuur cismaan abuukar iyo dembiile shabaab maxamed cali boorow aadan ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi tawfiiq weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka Somali Cable waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkii wardoon qaar kamid ah ciidamada dawladda ayaa nagu soo maqan oo baneeyay fariisimo ay ku lahaayeen gobolada dalka gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii ay sheegeen in mushaar la'aan ay ka cabanayaan wararkaas iyo kuwa kale ayaa inagu soo maqan balse maamulka cusub ee degmada Xamal Wareeyne ayaa maanta xilka kala wareegay maamulkii hore ee degmadaasi munaasabad ka dhacday degmada Xamar Weyne ayaa xilka waxa kula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada Xamar Weyne Cabduqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo horay degmadaasi gudoomiye uga soo noqday mas'uuliyiin ka socday maamul gobolka Banaadir xildhibaano iyo xubno kale ayaa munaasabadaasi ka qayb galay xildhibaan Khalid Macow oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha guddiga saxaafadda golaha shacabka ayaa ugu baaqay maamulka gobolka Banaadir in canshuurta gobolka ee degmada Xamar Weyne isla degmadaasi dib loogu celiyo xilli uu ka hadlayay munaasabadaasi ayna ka dhacayso deegaankan Xamar Weyne qaasatan oo aniga waxay ii tahay maxaan ku yiraahdaa maartay arin aad iyo aad maartay gaar ii tahay maxaa ayadan ka soo bilaabay markaan shaqo qabanay ayadan ka soo bilaabay gabadhii gudoomiyaha ahayd oo meesha ka hadlaysay gudoomiyaha haweenka aabaheedii waxaan isla hajarnay guddigii kacaanka ee degmada Xamar Weyne waxaan aad ugu faraxsanahay meesha aan fadhino iyo xafiiskan aan joogno dhagax dhigideeda koowaad iyo dhismaheeda inaan ka soo qayb qaatay sharaf bay ii tahay haddii aan intaas ka gudbo runtii waxaan aan jeclahay inaan si gaar ah horta ugu mahad celiyo odayaasha dhaqanka oo horteena fadhiya yaan jeclahay oo runtii door weyn ka soo qaatay maxaan ku yiraahdaa deegaankan howlihiisa gaarka ah oo mar walba ayaga odayaanta loogu tago wax ka qabto degmadan Xamar Weyne run ahaantii waxaad moodaa xoogo inay ka duwan tahay degmooyinka kale waa ka duwan tahay dabeecada dadkeeda iyo nabad jaceylka lagu tilmaamay iyo qaabka loo wada nool yahay degmadan waxay caan ku tahay haweenku waa mahadsan yihiin waxay soo xusuusanayaan waayo xaaji aamo ilaahay ha u raxmado ina soo xusuusanayaan marka runtii degmadan ka duwanaanshahaasaytii waxay u keentay deegaankan muuqaalkiisa markaad aragtaan waxaa arkaysaan nooc walbo dad inay akuba daaraysa ay soo dhaweysay oo waxaa ku nool dad meelo kala duwan ka yimid ama carab ha ka yimaadeen ama hindi ha ka yimaadeen ama meelo badan ha ka yimaadeen ama Soomaalida gobolada ha ka yimaadeen dhammaantooda waxay ku soo dhaweysay gacmo furan ku soo dhaweysay intaas waxa u sahlay waxa way xadaaradda la sheegay la tilmaamay oo dhagacad uu sheegay taasa ma saldhigwa haddaan u soo noqdo maamulka dadka reer Xamar Weyne waxay leeyihiin dhaqan ay leeyihiin dhaqankoodii waxay jecel yihiin sanadka markii la gaaro shaki ku dhameystaan waxooda ay isku gudbiyaan
meeshaan waxa la Cabdulqaadir oo Naciimi caradan xiriiri way Cabdulqaadir waxay saari doontaa mas'uuliyad oo gaar ay saari doontaa run waaye imkaaniyaadka waa yar yahay degmadan waxa waaye degmo runtii xadaarad aad iyo aad u dheer leh waxaa soo galo dad badan oo gaaray kumaanka ah soo galo maalintii 5,000 iyo haddaysan ka badan ayaa soo galo oo u soo doonto maxaan ku raadaan shaqo u soo doonto ka shaqeysto suuqeeda habeenkiina ka guuro dadkaas ayaga ah runtii waxay ku dhaafaan meeshaan qashin badan meesha lagu dhaafaa oo qashin caadi ah waaye ku dhaafaan degmada marka haddii degmadii ay tahay degmo ganacsi ah lagu yaqaano qaar waxay u soo doontaan ganacsi u soo doontaan qaar waxay u soo doontaan iskuul ay u soo doontaan maxay degmadan waxaa yaalo wax walbo umadnimada maartay asaas ku ah iskuul ay yaalo ganacsi ay yaalo jaamacada ay yaalo maxkamadaha ay yaalo wax walbo umad maartay asaaska nolosheeda ayaa yaalo degmadan waxay bixisaa canshuur aad u badan ay bixisaa ama dadka imaanay ha noqdaan ama dadka degan ha noqdaan maamulka gobolka Banaadir dhowr jeer aan kala hadalnay waxa ay bixinayaan waxa waa inuu ku soo noqdo waxa ay bixinayaan tax ay bixinayaan inuu ku soo noqdo dalkan waxa lagu dhaqaa systemkan federaalka hoos uu ka soo bilaabana wuxuu ka imaanaa waaxda yuu ka imaanaa unugu ka imaanaa yuu ka soo dhismaa ilaa uu ka soo gaaro dawladda dhismahaas ma jiri doono degmadan ma gudbi doonto mana guulaysan doonto haddii lacagta canshuurta ay bixiso haddaan aydu ku soo noqon ma la ogolaan karo wadooyinkooda inay jabsanaadaan lama ogolaan karo ma la ogolaan karo degmadan inay laboratory laga waayo oo ku filan ma la ogolaan karo ma la ogolaan karo ma la ogolaan karo codkan meel walbaan ku sheegaynaa waa sheegnay basma waa fadhidaa dawladda hoose waa u gudbinay haddana waa u gudbinaynaa maartay madaxnimada Cabdulqaadir maanta soo magacaabay waa transition way maanta Cabdulqaadir joogo bari qof kala imaanay bari dambe qof kala imaanay xildhibaanimada saasiya la mid ah wasiirnimada saasiya la mid ah gudoomiyaha saasiya la mid ah waxa way deegaanka waxa aan tagayn dadkiisa way dawladnimadana deegaankii ka bilaabata dawladnimadana deegaankii ka bilaabata deegaankana waa dadkiisa marka lama rabay waa ku shaqeynaa lama rabay degmadan maanta la dhisay degmooyinka dagacad waa fadhiya tusaale u heedaan bay sheegeen tusaale u heed oo haddii maxay tusaale u heed waxay tusaale u heed abaabulkii tusaale u heed dadka wax soo dhaweynayo systemkii jir wax soo dhaweynayo degmada laga wadi jiray meelaha ugu weyn madaxda lagu soo dhaweeyay aeroboortka haday tahay madaxtooyada haday tahay bulshada reer xamarweyna la kixin jiray maxaa loo kixin jiray waxa lagu kixin jiray dagacada waa fadhiya waa wada shaqeyn jirnay waxay ahayd punctualityada macnaa shay ballan dhowrista reer xamarweyna marka loo yeero waxay ahayn diyaar bay ahayn laba maamul fiicnaanta saddex dadka laftirkooda nidaamkooda nadaafadooda iyo siday maartay shay u dhisan yihiin afar dad waxay ahayn dawlad jecel rabo canshuurta si maartay toos maalin walba u bixin jiray canshuurta ay bixiyaan waa dareemi jireen xamarsay u dhisantay maartay sida ay noqotay marka haddii ilaahay annaga uu nasiy xamarweyn haddaan nahay oo xaafadaheena ay noqdeen xaafadii waxaan dhan ay ku soo hiranayeen xilkana saaran aad ugu balaariyay maamulka oo nagala raban ma noqon doono maamul Cabdulqaadir kaliis ku filan doono ma noqon doonto Cabdulqaadir hadduu waayo hadduu gacan waayo magaceena waa xumaana waxa waaye geesi haddaa aragtaan inuu guulaysto waxay mar walba ku xiran tahay matiyagadaasi joog dadkiisa waa bulshada ay ula shaqeeyaan lagama laha xaafadda lagama laha adiga laga rabaa inaad dhisato adiga laga rabaa caafimaadkiisa inaad ka shaqeyso adiga laga rabaa inaad samayso dawladda xaqa lagu leeyahay ayadana waxay bixiyeen inuu qayb ka mid ku soo noqdo degmada oo maxaan ku iraadaa maanta gacan la siiyo odayaal waa hagaag kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Khalid Macow oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ka hadlayay munaasabada xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee degmada Xamarweyne magaalada Muqdisho maanta wasaaradda maaliyadda waxay ku qabatay kulan u muuqday inuu ahaa mid ay ku soo bandhigayso waxqabadkeedii isla markaana ay ku muujinayso waxyaabihii u suura galay kulanka waxaa goobjoog ka ah mas'uuliyiin kala duwan
oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda maaliyadda xubnaha kala duwan ee wasaaraddaasi wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo xubno ka socda wasaaraddaasi iyo wasaarado kale saraakiil ciidan ayaa goobjoog ka ahaa xildhibaano baarlamaanka iyo xubno kale balse ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Saleebaan Sheekh oo ka warbixiyay qaabka waxqabadkoodii iyo waliba waxyaabihii u suura galay muddadii ay wasaaradda joogeen oran maayo dhammaan waxaan soo dhaweynayaa madaxda sharafta leh oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Mareeye xisaabiyaha guud ee qaranka gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe agaasimaha guud ee dakhliga agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda taliska ilaalada cashuuraha qaranka taliska booliska iyo dhammaan madaxda sharafta leh iyo shaqaalaha weynaha wasaaradda maaliyadda ee ka soo qayb galay xafladan loogu talagalay in aan isku xog wareysano uguna mahad celino oo ugu mahadnaqno shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo soo qabtay shaqo runtii aad u adag inaan ugu hambalyeeyno wixii ay soo qabteen kuna dhiirigelino inay waxa dhiman u gutaan si ay ku jirto xilkasnimo oo ay dardargeliyaan hawsha ay u hayaan qaranka waan ogahay waxaad ku soo shaqayseen waqti adag duruufo adag oo dhinac kasta waxaad aad ugu mahadsantihiin in aad ka timaadeen meel fog aad maraysaan meel fiican ayna idin harsan tahay dalcad aad u weyn oo u baahan inaan ka gudubno oo aan dhakadeeda tagno waad ogtihiin waxaynu ka shaqaynaa ururinta dakhliga qaranka waxaad ogtihiin miisaaniyaddeenu meesha ay tahay in laga rabo in lacagta aynu ka soo ururino ummadda Soomaaliyeed ee aynu adeegeeda dib ugu celino in ay tahay waxa laynaga sugayay waddankan horumar gaarsiin kara shaqo fiican baad soo qabateen waxyaabo badan baa laga soo shaqeeyay waxaan aad iyo aad maaragtay mar labaad iyo mar saddexaadba u soo dhaweynayaa shaqadii adkeyd ee aad soo qabateen waqtigii aad ka ku soo shaqayseen inta aan ka tago hadhow waxa oran doona madaxda wasaaradda ayaa oran doonta laakiin hadda waxaan ku soo koobayaa inaan xafladiina ay tahay xaflad inoo furan mahadnaq iyo maaragtay isbogaadin iyo inaynu inagu inta aan laynoo iman oo layna xisaabinayno nidhaahno bal horta xaggee maraynaa sidaa daraaddeed waxaan aad mahad gaara ugu celinayaa shaqaalaha waaxda dakhliga oo aad iyo aad ugu dhabaar adeygay hadday tahay cashuuraha beriga iyo hadday tahay customka dhammaan waxay soo qabteen shaqo aad iyo aad muhiim u ah waa qori isu dhiib ilaalada maaragtay hoggaanka ilaalada cashuuraha kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Xasan Bariise oo kamid ah saraakiisha ciidamada booliska magacana ku dhaxlay isla markaana ah afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ay tartansiiso ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan canshuur bixiyaasha si ay ugu tartamaan kaalinta bixinta canshuuraha taasi uu tilmaamay inay qayb ka noqon doonto sar u kaca dhaqaalaha Soomaaliya dakhliga xisaabiyaha gudoomiye ku-xigeenka bangiga agaasimayaasha kala duwan ee waaxyaha iyo qaybaha wasaaradda maaliyadda saraakiisha taliyaha hoggaanka CID saraakiisha fadhiyada kala duwan aeroboortka dekedda laanta madaxda kale ee halkaan iga muuqato oo aanan soo koobi karin dadka kale ee martida dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iga raalli noqda waxaan hilmaamaa hanuuniyaasha kooxda deegaan oo runtii ku leh wacyigelinta dadka wax badan aniga hadal badan iigu fura kaliya waxaan rabaa waa la sharaxay halkaan ka nimid halkaan joognana waa xoogaa la tusaaleeyey meesha aan u soconnana waa waadax waa ogna intaas oo dhan haddii aan la gelin juhdi haddii aan la helin madax wax tilmaanta iyo shaqaale wax qabta oo dhega nugul aqoonna u saaxiiba waxba ma kordhaan intaba haddii la isku helay la helay madaxdii wax tilmaamaysay halka laga tegayo iyo halka loo socdo
isla markaasna aan goobtaas uga harayn ee wixii hadal aysan ahayn ee korjoogtaynaya shaqadii waxyaabaha aan hore ugu soconno waa sidaa waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed runtii sida hadda madaxdiga horeysa sheegtay su'aalo aad u dhib badan la weydiinayay markii aan bahashaan ka soo bilaabaynay in dadku canshuurta bixiyo sababta uu u bixinayo iyo waxa uu ka helayo macnayntooda dhib badan ka soo mudan waxaan gaari jirnay mararka qaar aniga iyo agaasimaha ninka la yidhaahdo canshuurta beriga Muxudiin inaan si gaara xudxudasho waa taqaaniinaan u malaynaa xudxudana dadka nidaado war magacaa jiriye muxuu ahaa jidkaa lagugu samaynaa isbitaalkaa lagugu samaynaa meelaha MCH lagugu dhisaa waana arki doontaa waxaan gaarnay inayna yidhaahdeen 2 biloodaad wax naga qaadeen hal meelood burkeeti saarteenna ma arkinin beenaan noo sheegaysay waxaasoo dhan aan soo marnay kadib markii laamiyadii la bilaabay dhismayaal badan oo ay bilowdeen wasaaradihii qaarkood muxuu ahay dhismo lagu bilaabay runtii waxaad u malaysaa dadku inuu maalinba maalinta ka dambaysa muxuu ahay soo kordhayo lala yaabi maayo ganacsatadii la yaqiin iyo dadka canshuur bixiyaasha ahaa dareemi kara cilmi ama ule ama waayo aragnimo in lagu faano anigu canshuur bixiyaan ahay waxba laygu male dalkayga waxaanan u qabtay inay muxuu ahay dadkii gabawsii noqdeen igaaladin lahaa soo baxday oo xoogaa waxay heshay maba yaqaaniinba canshuurtu waxa ay u gasho inaanay ahayn waxaad bixinayso ee ay tahay wax adiga kugu soo noqonayo in yaraa garan karta waxaan rabaa marka maanta haddii wasiirkii fadhiyo hal shay oo mar walba igu soo noqda ganacsataduna ay naga codsato xaqna u leeyihiin inuu noo ogolaado wasiirku in la sameeyo ganacsato badan dadku isku ma ahan muxuu ahay wax bixin isku dhagal weyn ma aha isku muxuu ahay dhan walba ma aha ganacsatada waxay leeyihiin anigu waxaan dhiibaa bil walba intaasoo lacag waxaan ku baxshaa waqtigii loogu talagalay waxaan ku baxshaa dhagal weyn xaq waxaanu leeyahay masayrku maahan iga raalli ahaadee niyanaa kala masayran maaha quruxdaa leesaga masayraa shaqadaa leesaga masayraa waxqabsigaa leesaga masayraa anigu ganacsadaha muxuu ay ka gaabinaya hawsha xaq uma lihi in layla barbarsimo waxaan xaq u leeyahay in inta xaflad lee qabta la yidhaahdo hebel intaasoo canshuuruhu bixiyey intaasoo dakhligu dowladda siiyey intaasoo oon ku faani karaan rabaa berrinta markii lay guddoonsiiyo aniga marka shahaado sharaf ama magacayga la xuso igaar kalaa masayraa oo iga soo dhinac baxa soo waxaa badanaya marka isu mateerkaas wuxuu keenaa in muxuu ahay dakhligii kordho taasna wasiirka si xushmad iyo karaamalaan waa codsanaa in la sameeyo dadka bakeed anigu askariyaan annaga haddii ninka askariga ee waqti kula qortay amaad isku aqoonta aheedeen malaayiin lacag helo kama masayro laakiin hal darajo maalintii asagu ku dheeraado wadnaha ku go-aay dadka Soomaaliyeed oo dhan saas marka inaan dadkeena sharafta leh tartiib u soo kacaya adduunka aan la socon ninka canshuur bixiyaha waa ka qiimo badan yahay walba waa nin beledgeesi heestoo kale maxkamada haddii la geynayo xataa wuxuu ku leeyahay waxbaa nooga dhima inay saas dadkeenu bartaan muxuu ahay haddii alla ilmo tartansiinana aadaa kaaga codsanaya waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida wanaagsan ay hadda muxuu ahay hawshii ula qabsanayaan baryahan dadka siday sheegeen agaasimayaashu marka hore waxay nagu dhibi jirtay nin weyn oo odaya in inta muxuu ahay la soo kaxeeyo ciidan loo diro
kaasina wuxuu ahaa taliyaha hoggaanka canshuuraha booliiska Soomaaliya ahna afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka qayb galay munaasabad maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay waxqabadka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya qaybaha hore warka sida aad ku daawaneyseenba barnaamijka ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa soo baneeyay qaar kamid ah fariisamaha ciidamada ay ku leeyihiin ee gobolka Shabeellada Dhexe deegaanada ay ka baxeen waa fariisimaha Qalimow Mahaday qaybo kamid ah Jowhar iyo kuwa kale waxa ayna tilmaameen in dhammaan